Alaabtan haddaad timaha marsato oo muddo yar oo kooban haddii aad isticmaashid, hubaal inay timaha si degdeg ah kuugu baxayaan. Timaha bixitaanka ay bilaabaan haddi aysan weligood joojin doonin insha Allah ilaahay idinkiisa. Waa alaab yar oo fudud walaalahayga oo timaha hadda si degdeg ah u bixinayso, timahana dhabarka geynayso. Sidoo kale alaabtan timaha ragaaska, qaleylka, adeyga ayay ka bixinaysaa. Timahana waxay ka dhigaysaa jileec, madow, furfur, xariir kaal iska arag. Timahana way qurxinaysaa, timaha way nafaqeynaysaa, timahana way israacinaysaa. Hadda waa alaab walaalahayga dhan walba ka dheelitiran. Waxaa waaye alaab dhaaftay waa insha Allah. Igala faa'iideysta walaalahayga kana bogta fiidiyowga soo socdo waxyaabaha aynu ka hagaajisanayno walaalahayga iyo sidaan hadda u samaysanayno. waana ku mahadsantiin walaalahayga mar walba sida quruxda badan ay ila socotiin. Sidoo kale walaalahayga waxaan kale unika ilaawa alaabtan waxay kale u fiican tahay timaha siimayo ama salka soo go'ayo way ka joojinaysaa siibitaankaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabta ku xiran Najax Kitchen and Beauty, soo dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin dhammaantiin ku soo dhawaada channelkeena Najax Kitchen and Beauty uga barateen isqurxinta dabiiciga. waa walaashin wadeeni sida cashar kale cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wada sida title-ka video ku soo aragteen. qaybta ugu horeysana aad video-ga ku soo daawateen wixii wixii hadala. qaybta ugu horeysa video-ga ayaan ku soo koobay walaalahayga. marka hadalka iyo warka hadda in kugu badinaaye alaabtan dheelitiranka ah waa hadda timaha maasha Allah dhagdhagta ka dhigayso, hadda dhan walba ka dhameystirayso ayaan ka soo tuuranaynaa walaalahayga insha Allah. igala bogta walaalahayga video-ga soo socdo waxyaabaha aynu ka hagaajisanayno iyo sidaan u samaysanayno. bismillaah, alaabtii ayaan samaysanayna walaalahayga. hadda timaha sida degdeg ah u bixinaysay. marka hore walaalahayga waxaan soo qaatay weel alaabta aan iskula dardarsano. sidoo kale marka koowaad waxaa u baahan tahay fasiliin ayaa u baahan tahay. halkan waxaa yaala hal xabo fasiliina. marka fasiliinkaas ayaa marka koowaad u baahan tahay. hal qaando fasiliin ah ayaan ku shubanay walaalahayga weelka yaraa oo hadda inoo diyaarsanaa. fasiliinka waa ka badsan kartaa intaas, laakiin aniga haatan waxaa isleeyahay hal qaandaa kugu filan. sidoo kale waxaa kaloo soo qaatay walaalahayga biyo kulul ayaan soo qaatay. biyahan hadda ayaan dabka ka soo dejiyay walaalahayga. fasiliinkii ayaan hadda waxaan dhex gelinaynaa biyihii oo waxaan rabnaa fasiliinka inuu noo dhalaalo ayaan rabnaa walaalahayga. marka sidaas fasiliinka u soo dhalaalinaya. hadda markuu noo soo dhalaalo ayaan isku soo noqonaynaa. marka walaalahayga biyaha dabka kuma celinayay, ayagoo sidooda u kulul ayaan dabka ka soo qaaday. marka fasiliinka oo kaliya ayaa sidaas u dhex dhigaysaa ayagoo dabka saarnayn, asaga ayaa iska dhalaalayo fasiliinka. walaalahayga inay fahanteen ayaa rajeynaya. waa u jeedin hadda walaalahayga fasiliinkii siduu noogu soo dhalaalay oo u soo baaba'ay. wax yar oo kaliya ayaa u dhiman. fasiliinkana walaalahayga xagga timaha laguma gaaro, timaha wuu nafaqeeyaa wuuna bixiyaa walaalahayga fasiliinka timaha. sidoo kale fasiliinka timaha wuxuu ka bixiyaa ragaaska, qaleylka, adeyga ayuu ka bixiyaa. timahana jileec ayuu ka dhigaa walaalahayga, wuu jilciyaa timahana wuu madoobeeyaa. fasiliinka marka inaba caadmaan waa fasiliinkii walaalahayga wuu soo dhalaalay, biyihiina waan ka bixiyaa walaalahayga. hadda sidaas ayuu inoogu soo baxay maasha Allah. markuu inoo soo dhalaalay fasiliinkii walaalahayga, fasiliinkii markuu soo dhalaalay waxaan ku darsanaynaa walaalahayga saliid ayaan ku darayaa. saliid qumbo 3 qaanda ayaan ku darayaa walaalahayga. meesha saliid qumbaha ka isticmaalaa in saliid aad jeceshahay ayaad ku bedelan kartaa. muhiimadu waa inaad haysataa saliid nafaqo leh. sidoo kale walaalahayga waxaan kaloo ku darayaa waxa caagan waxa noogu jiro waa kapsulka timaha waaye walaalahayga oo fitamiinka ah. kapsulkana caadi maan timaha siibitaanka googa ayuu ka dhameeyaa walaalahayga. timahana wuu bixiyaa wuuna nafaqeeyaa. 2 xabo kapsula ayaan walaalahayga aan ku darayaa. hadda alaabtii weelka inoogu jirtay. kapsulkan walaalahayga waxaa ka heleysiin meelaha shoppingka ayaa lagu gadaa. alaabtii markii aan kapsulka aan kusoo daro walaalahayga 2 xabo ahaa, hadda alaabtii waan isku qasayaa oo si fiican ayaan isku dhex gelinayaa walaalahayga. markii walaalahayga alaabtii hadda si fiican iskugu soo qas si fiican isku soo dhex geliyay, sidaas ayay inoogu soo baxday alaabtii. sidaas ayayna diyaar inoogu tahay walaalahayga. alaabtii fududeed oo hadda timaha bixinaysay. haatan oo kaliya waxay u baahan tahay in jag la isku siiyo. marka alaabtan lama rabo inay ka qabowdo ayadoo xoogaa waxaa la rabaa qandaca inaad timaha u isticmaashida la rabaa oo marisida hadii kale waxoogaa way ka xiirowaysaa maadaama uu ku jiro fasiliinkana waa iska taqaaneen. hadda marba hadii uu isheeg uu qabowbo wuu fariisanayaa. marka waxaa la rabaa ayadoo xoogaa qandacaas ku jiro in alaabta jag isku siisida la rabaa. intaas ina ila fahanteen ayaan rajeynayaa axbaabi.
marka waxaad sameynaysaa alaabta ayadoo xoogaa yara qandaca ayaa timaha marsanaysaa. lama rabo alaabta inaad timaha geb iskaga siisid. waxaad sameynaysaa timaha marka hore waad kala baraysaa. markii aad kala bartid kabacdi timaha salka lafta meeshay timaha kasoo baxaan ayaad alaabtan ku masaaj gareynaysaa si yar oo tartiiba aad u marinaysaa. kabacdina dhinacyada timaha, geesaha timaha, korka timahoo dhan ayaad ugu dambeynta aa marinaysaa. kabacdina waxaad sameynaysaa timaha waa sharlayne waa duuduube. alaabtan waxaa la rabaa habeenkii markii aad seexanaysid inaad timaha u isticmaashid oo aad ku jiifatid aa la rabaa. subaxiina hadda markii aad soo kacdid haddii markaas oo kale aad jeclaysid sidoo kale waad iska dhaqi kartaa. haddii aad rabtidna waad ku joogaysaa, wax dhib ah ma lahan, adiga ayay kugu xiran tahay. laakiin haddii aad iska dhaqay sidoo kale waxaad iskaga raacinaysaa dubi shaamba ama conditioner ama nafaqada timaha lagu mirto ayaad iskaga dhaqaysaa. alaabtan waxaa la rabaa wiigii inaad 3 maalin ilaa 2 maalin ah ka isticmaashid aa la rabaa. haddii aad muddo 1 bil ah aad si toos ah alaabtan u wadid oo wiigii 3 maalin 2 maalin aad ku tuuratid, hubaal timahaaga isbedel weyn oo degdeg ah ayaad ka dareemi doontaa insha Allah. ilaahay idinkiis. alaabtan walaalahayga ha dhayalsanina, waa alaab cajiiba. timaha hadda si degdeg ah ayay u bixinaysaa, timahana way nafaqeynaysaa. timaha ragaaska, qaleylka, googa, siibitaanka wuxuu dhan way ka bixinaysaa. timahana jilaac iyo furfur madow xariir ayay ka dhigaysaa walaalahayga. marka maasha Allah ma ahan alaab laga fariisan karo insha Allah. ila soo tijaabiya walaalahayga oo igala faa'iideysta. hadda videogeena maanta intaas ayaan kusoo afmeerayaa walaalahayga insha Allah. waa inoo kulanti dambe oo xiiso leh anigoo inii sidoo video kale cusub walaalahayga. videogaana sii share gareeya si ay walaalo badan uga faa'iideystaan. channelka haddii aad ku cusub tahayna soo dhawo minankaaga waaye channelka inoo subscribe garee. haddii aad hore noola joogtana waad ku mahadsan tahay mar walbo la joogaaga quruxda badan. videoga haddii aad daawatidna hadda like ta hanaga ilaawin. tiim Najax haddaan nahnay like ta waa ku dhimanaa.